qalbiga gabadha waa sida dhul khalalan oo kale haddaad ku beerto miraha jacaylka iyo runta aadna ku waraabiso xanaanayn aadna u dagaalanto darteeda isla markaana aad siiso muhiimad way soo bixi doontaa wayna soo muuqan doontaa weliba iyadoo wadata midaba aad u qurxoon kaliya waxay rabtaa qalbi dareensiiya deganaan iyo ammaan kana fogeeya xanuunada laakiin haddii aad taabato karaamadeeda aadna ihaanayso oo aad qalbigeeda jebiso way ilaabi doontaa jacaylka ay kuu qabtay agteedana waxaad ka noqon doontaa qof shisheeye ah dabkeedana ma demi doono ilaa ay u aarguddo karaamadeeda waxayna kaa dhigaysaa inaad dareentid xanuunadeeda haweenayda waa sida dhalada oo kale dhaawac ma gaaro ilaa aad jebiso aarsashadeedana waxay daliil u tahay in dhaawacyadeedu aanan weli zuulin oo ay yihiin weli kuwo ay dareemayso xanuunkooda waxay isku dayaysaa inay xanuunadeeda ku khafiifiso aargudashadeeda ka digtoonow aarsashada haweenayda hana dhayalsan haweenayda ahawna mid ku kalsoon inay kuu samayn doonto nasiib labajibaar ah waxyaabahaasi wanaagga ah ay kuu samaynaysana waxay ku xihan tahay waxa aad dareensiiso adiga naxariisii nabadgelya xagga alle ka ahaatay dushiina ha ahaato walaalayaal